maanta waxaan idin soo jeedinayaa walaalayaal haddii dhibaatada kugu hayso zawjadaada amaba dhibaatada kugu haya zawjkaaga waxaan ku soo gudbinayaa duco haddii aad ka dhigato wirdi amaba wardi amaba daan si kale u dhaho aad laazimto Allah subhanahu wa ta'ala haddii uu ka qalloocnaa ninkaaga uu ku toosayo daacadna ku noqonayo haddii ay ka halaysaneed xaaskaaga oo ay ku toosayso ee wadada toosan ee ku soo marayso mise daacad ay ku noqonayso haddii awlaada ay inaga xumaadaan oo kale ama ay inaga xumaayeen ay ku toosayeen haddii wiilal ay yihiin wadada toosan ay marayaan ama haddii gabdho ay yihiin wadada toosan ay ku soo dhacayaan ayaan idin soo gudbinayaa fadlan ducadan haddii adiga xaaskaaga ay ku toosan tahay amaba ninkaaga uu ku toosan yahay amaba wiilashaada ay ku toosan yihiin amaba gabdhahaaga ay ku toosan yihiin fadlan sheergarey oo ummadda kale inta la wadaag adigoo soo xasuusanayo الدال على الخير كفاعله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي في الله كسو دوادا الشيخ ريمي channel waxaan idin leeyahay meel kastoo aad joogtaan dal iyo dibad iyo dac kastoo aad jirtaan yar iyo weyn iyo qof kastoo aad tihiin rag iyo dumar eebaweyne waxaan idinkaga baryayaa cimri dheer oo cibaado leh adduunyo meelsan leh aakhiro janno leh inuu nasiib dhammaanteena آمين 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 اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه من الأقوال والأفعال والآراء اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا سهل مرادي ومراد المسلمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات أحبتي في الله كسو دوادا فيديو عصب ما أنت وحان الذين سو جيدنا يا ولاليال هدي dhibaatada kugu hayso zawjadaada amaba dhibaatada kugu haya zawjkaaga amaba dhibaatada haddii aad tihiin waalidiin ay idinku hayaan awlaada haddii ay ahaan lahaayeen wiilal iyo haddii ay ahaan lahaayeen gabdho waxaan ku soo gudbinayaa duco haddii aad ka dhigato wirdi amaba wardi amaba daan si kale u dhaho aad laazimto Allah subhanahu wa ta'ala haddii uu ka qalloocnaa ninkaaga uu ku toosayo daacadna ku noqonayo haddii ay ka halaysaneed xaaskaaga haddii oo ay ku toosayso ee wadada toosan ee ku soo marayso mise daacad ay ku noqonayso haddii awlaada ay inaga xumaadaan oo kale ama ay inaga xumaayeen ay ku toosayeen haddii wiilal ay yihiin wadada toosan ay marayaan ama haddii gabdho ay yihiin wadada toosan ay ku soo dhacayaan ayaan idin soo gudbinayaa fadlan ducadan haddii adiga xaaskaaga ay ku toosan tahay amaba ninkaaga uu ku toosan yahay amaba wiilashaada ay ku toosan yihiin amaba gabdhahaaga ay ku toosan yihiin fadlan sheergarey oo ummadda kale inta la wadaag adigoo soo xasuusanayo الدال على الخير كفاعله haddii aad ka heshidna fadlan like sidii roobka inooga yeela sidad badan ay u gaarto subscribe na soo dhaha oo nagu soo bira dhiirigelin bay noo noqonaysaa gambeelkana furta si ay idin soo gaaraan wax kasta oo aan soo gelino insha Allah biidnillaahi alkariim yaan warka idinku daalinin waxaan idin soo gudbinayaa ducada aad ka dhiganaysid wardiga oo Allah subhanahu wa ta'ala degdeg uu kaaga ajiibayo oo waxaas markaas aad u niyeysatay haddii ninka uu ka xuma haddii naagta ay ka xumay haddii awlaada ay ka xumaayeen Allah subhanahu wa ta'ala uu ku toosinayo insha Allah biidnillaahi alkariim ducadaasi waxaad ku ducaysanaysaa markaad tukatid shanta waqti ayaad ku ducaysanaysaa waxaa ka sii fiican in aad qaabka u isticmaashid subxaanallah walxamdulillah walaa ilaaha illaa oo kale inaad ku wardisid oo aad ka dhahdid maalinkii 100 tooko maxaa yeelay waa hal aayadood oo duco ah waxaad leedahay
ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما waxaad arkaysaa awlaadaada oo lagu dayanayo siraat almustaqiimka ku qumay ayaad arkaysaa zawjadaada lagu dayanayo zawjaadka kale ay ku dayanayaan ayadoo waxaad arkaysaa ay hayso siraat almustaqiimka waxaad arkaysaa ninkaaga oo lagu dayanayo nimanka kale ay ku dayanayaan oo uu haayo siraat almustaqiimka insha Allah biidhnillaahi alkariim waana aayad marka hore haddii aad ku celceliso ajarkeeda marraba ma weynaysid rasuulka ayaa biyiribo la aqulu alif laam mim xarfun walaakin alifun xarfun walaamun xarfun wamiimun xarfun aayaddaasi marka hore inta xaraf ay ka kooban tahay ajar ayaad ku leedahay 10 ajar ayaad ku leedahay dad 100 jeer aad ka dhahdo imisa ayay noqon kartaa mideeda labaadna waa duco mideeda saddexaadna waa ma garanaysaa mustajaabo هموغاني ولا تجابي أولاد بدن أيا سيدي أي أول ناين مابا يعني ما كان كله أي أول ناين والدي قاعدة هت ما هي جبر ملكست تقول أي صحة تهبينكي أي صوت حجرتي أيا مركي دمبو إن هو يدي أبيه يعني قفبة لنا عود أنت كعين دعاء سي أي كدو عيستين جبر ودي وحي نقطة سيدي قفلة سحري أو كله أي نقطة جورجا أيا لو حرحري بنانك cabsi ayay ka qaadaysaybo wiil waxa jiro loo akhristay isagoo laga keenay qurbaha dhaqan xumo ayaa looga keenay dhaqan celin ayaa dalka loo keenay markii loo keenay ka bacdi la kari waayay si gabar kasto lagu daro way ka cararaysaa droogista amal waayebo droogo taban bartay sida la sheegayay jaadcun ayuu noqday sigaar cab ayuu noqday xashish dhuuq ayuu noqday gabadhii hooyadiis ay ku dartay lacala hadagoo la dhahay gabadhii wuxuu damcay maadaama asaga iska yara fudfudud yahay gabadhii lacagta loo soo diro la rabo in lagu qaboojiyo dhunta ayuu qabanayaa wuxuu leeyahay sheeknaya lambar sirtaada sheek markaas ay u sheegaysaa iyadoo nafsadeeda badbaadsanayso marar qaarkood xitaa waxa ay dhacdaa in ma garanaysaa oo alaab guriga taasho ka mid ah uu iibsanayo ala ay xal wiilkii yaan wark idin ku daaleynayne waalidiintiisa waxay u akhristeen aayadan oo kale oo yaani ma garanaysaa tajribada la tijaabiyay oo ducadana ah oo mustajaabadana ah wiilkii wuxuu noqday qof la qabtay oo kale yaani la qabtay markaan ku leeyahay afgaaban hadii jaad lagu soo magac qaado wuu xunqaacaya ama wuu matagaya sidaas daraadeeda aayadan yaan la moogaanin awlaada ma garanaysaa haloo akhristo xaasaska haloo akhristo nimankana haloo akhristo si Allah subhanahu wa ta'ala oo inoogu toosiyo hada wallahu a'lam intaas ayaan uga baxaya waxaan helay nafya shaydaan ay ka ahdan ilaahay naga dhaafo waxaan hagaajiyay famnillahi xaqiisay ka ahdan ilaahay naga ajarsiyo wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh